السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وعنا وناكسنا غيرتي إنه حيران إذا الكين بميل كستو جوكتان حلي كستي وقت كستي إذا انتهاي شرف ميديا 24 يعني نقل سعودان مقال كان غرفة بدنا هالكاسي يودي كسو جارايا واتهاي طبعا وحن ساك برها بلشة وأركب مقالا آد وجاء نحي إسلام أركانا رنتي رنجرت أمام تاجن أمام سوجرينا طبعا سومالي دي مانتا حلي وحلي أدق يعني طبعا دتكو قفك هدون إلهي كو حرنين أو إيمان لهين قفك ولالكي وحو البقينو كو سمعي وإلا فرضهي تي آخرنا هرتا هالكي دي ماشي دي بيتالا كنتي قضبك عن إسلايا كهذا الوحي تحي فنانك عانك سيدو وين لو جعليها دالنتا ير إسلامركانا دانكا أي مقدشو على فنكيس naga soo gaaro inkastoo wadamadan sida Kenya iyo meelo kala duwan howlo faneed uu tagay fanaan isku ma jiraan ma fanaanka Qadar Kayo hadaba Qadar Kayo ayaa waxa uu sheegay in muddo ah uu xanuunsanaa isla markaana waxa uu ku sheegay xanuunkiisa ay tahay sixir ilaahay naga najeeyay anaga iyo idinkaba asigana Allah ka caafiyo hadaba Qadar Kayo waa fanaan markaasi aad loo jecel yahay isla markaana dhalinta fanka ka dhex muuqata wuxuu sheegay in la saxray muuqaalkiisa dhan uu isbedelay wiilkii dabcan arintaasina ma aha wax cusub amaba qof walaala oo waxaas lagu sameeyo dabcan qofka baneystay aad bay u adag tahay aakhiradiisa iyo noloshuna wax badan ayaa la arkaa amaba dhaca hadaba maxay ka faa'iidayaan dadka waxaas ku sameeyay آخردو سيتاهي طبعا marka qaar waxaan aragnaa in la ogaan karo ama la sheegaa marka dad howlahaasi yaqaan oo kale ama culimada kale qofka marka la quraamiyo dabcan marka qaar waa laga dhaxla ilaahay baa naga og kuma dinbaabi karno marka qoori waaga iyo xasilnimada iyo waxyaabahaasi ayay salka ku haysaa maxaa laga macaashaya hadii qofka noocaas dadka sida u galay sidoo kale marka qaar dadka noocaas xataa waxa la sheegaa in ay u adeegsadaan hadii ahaan lahayd jacaylko kale fanko kale dad fanka ama position ku taagan oo kale ka xun wax walba ay noqon kartaa qofka waxa ku sameeyay runtii ilaahay caafiya ayaa leenahay waa qof Allahi abuur ka fogaaday oo shirkiga ku jira runtii bal aan dhageysano fanaanka Qadar Kayo oo arinta iyo dhibka ku dhacay mar oo bulshada la hadlay waxa uu yiri qadar walaal soo dhow إلهي كسيكو وأنا أقبل وقدوم الحمد لله عافمات تمام قبل وحرجينا أنت حنون كيقول عاي أما حنون كأي كرحمون غمدا وهاي إنه إلهي كدول هاي وحكى لنا ما أنا قفك بالأدن كيسوي ميركي جوجين هديفة على الشيطان لو أديك سنة تصويح وروح بدل معنا يسوي اللي الدليل كل شيء لما انتهى يلا كون انتهى الحمد لله الشكر لله واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان إلى القرآن كيس كبير وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كيف قال كفروا يعلمون الناس السحر كيف قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمنا من اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون مشى اثنين شريسان منو يستوي منو يجوز qofka sixirka iyo badaha galay runtii waa ana shirka li saajidiin waaye ilaahay waa dad la shirkinaayo ilaahay maxaa la yiraahdaa ka dheeraaday ilaahay ka furtay marka aakhiradoodii ayaaba khatar ku ah adduunkana kale iyagaaba dhiban xisaaba jirto maanta maalin ahayn ayaa la xisaabinayaa maanta maalin ahayn ay ka shalay doonaan marka adina Allah ka kiciyo adigana ilaahay dad ku xirnaad Kayo heesaha lagu yaqaan ama lagu xasuusta ayaa ah heesta 3 sano ka hor suuqa soo gashay walaalnimo bal waa kan asigoo muujinaya dareen walaalnimo
wiilal walaalo ah iyo gabdho walaalaha markaas ku dhex jiro heeskana uu banaanka keenay qaabka u jiray ayaa ah qaab aad u cajiib ah isla markaana dareenkeedu u sameeyo صاحب يال واحد لنا واحد جفتين ومسوي قلنا لو حسيت كاقب واحد لنا ومسوي قلنا هل روح بس جانس إلى أمر كيس إنه روح يودي وربي يروح وربي يروح يقع السنة انتبه معناها يا انكور استقفك بلاد كان يبنوها سيدا أنا قاعد عارف كيسان قارك ودد صوصارة فانكي وكبيح ربا سيدا نوياي لو حسيت كاقب قوان كان أسكالي إلهي تسكر الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعنك إسرائيل إلهي إسرائيل والله آخر ورباجرة آخر ورباجرة مركي لليه هي جهنم iyo jannadii ayaa loo shaqaysanaya qaarna jahannamay u shaqaysanaya iyo jaxiimo qaarna jannay u shaqaysanaya marka waxaa la rabaa qofka walaalka ah maalkiisa cirdigiisa sharafkiisa noloshiisa inuu ammaanka helo maxaa la yiraahdaa maxaa hadda wiilkaas yar laga eryanaya noloshiisa oo fanka ku jira anigu ma fahmin wallahi ummadda Soomaaliyeed aad baa loogu yaabaa daraadan TikTok waxaan arkay anoo mar iska fiirsanaa xilliga firaaq yaraay waqti ku riixay gabdha leh sida baa noola sixro halka baa nagala galay dabcan hadda arrimahaas waxaa ku badnaan jiray gabdhaho kale ayaa waxay dhihi jireen waana la galay meel hebel baa nagala gala saambay ka taa haddana waa kuwana waa raggii baa soo dhacaya Allahumma najina ilaahu adaa ka magan galnay il iyo dheg waxaan rajeynayaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu xirnaado mar walba oo guriga laga baxayana waxaa fiican adigoo weysal inaad baxdid adigoo weysal aad soo noqotid dunidu amiinka ugu dhamaaday qadar walaalo hal fariin ayaan rabaa inaan halkan kaaga soo faro Allah ku caafiyo horta Allah subxaanahu wa ta'aala xasidka iyo balaayada iyo shartoodana waxay wadaan ilaahay ku celiyo ilaahay iyagana soo hadeeyo waayo alla ka dheeraasho fara badan ayay sameeyeen waa tahay qadarow waxaa waaye ma ogtahay waxaa fiican sometime dadkani waxay kuu soo hoosgeli karaan amaba ay kusoo dhuuman karaan adigoo hadiyada lagu keenay waxyaabo fara badan ayaa qofka sida la sheego amaba la tilmaamo weysadoo kale iyo adkaarto afka aad ku haysid aad bay ma aragtay waxba qofkaasi waxaa la qofka hadduu ilaahay ku xiran yahayba waxaa la yiri looma dhawaan karo weyso waxaa la yiraahdaa inaadan dadkii xilliyada xataa cuntooyinka xataa waa waxba la sheegaa ma ogtahay sida loo wada ogyahay sida caamka dhamaanteen ma ah waxa aniga kale cusub idin sheegay laakiin dunidii aamin ma laha feejignaan fara badan ayaa loo baahan yahay inaad dadka iska ilaalisid dadka isku ilaali iskana ilaali dadkii laga wada go'i karo dadkii ka go'do waxaad noqonaysaa duka cambaar la waxa uu leeyahay qofkani maxaa la yiraahdaa uu isxirxir uu isbulo garay marka inaad isxirxirtana mararka qaar waa ay fiican tahay sidoo kalena waa ay fiican tahay inaad foojignato marka waxaa ila fiican inaad hal kula socoto salaadaada adkaartaada weysadaada intaas daadaa'intid kastoo bini aadan tahay oo mar walba oo maxaa la yiraahdaa salaadii ama weysadii ka jabi karto wax si ka noqon karaan bal dadaal insha Allah inuu ilaahay ku caafiyo waa rajeyneynaa adiga inta la mid waanan ogeyn oo arrimahaas ilka daran dunida wax la isku quuro ma lahan xaasidkii aad maxaa la yiraahdaa qofka waa ay bateen qofka xaasidka ku ah iyo qofka walaalka ku ah xaasidka iyo xabiibku way isku dhex walaaqsameen way isdhex galeen marka meel laga jiro ma aragtay ma fahmi kartid marka qaar iyo meesha laga qaniinayo marka waa adigu una maxaa la yiraahdaa fiijignadaada badato is ilaalisid ilaahayna loo dhawaado marka dunidan maxaa laga qaadayaa yaa qabrigii mugdiga ayaa la isku gabisayaa qof walbana wuxuu shaqeysto ayuu fool ay bala tagayaa maanta maalinaan ahayn ayaa xisaab jiri doontaa dunidan maxaa waaye iridan aad gashid iridan oo ka baxdo waaye waxaan isugu dhadhajino iyo waxaan waqti isaga dhumina iyo waxaan walaal u xaasidno dabcan anigu ma garan karo dadka iyaga howlahaasi waqtiga isaga lumiya live-ka maxaa la yiraahdaa wax oo quuriwaagii waa u fara batay I don't know ma aqaan ummadii meelay u socdaan yaa meelay ka socdaanba marka isku habsaamidii waa ay badatay bal walaalow ilaahaygaagii u dhawow insha Allah fankana aad ku jirtid waa ay fiicnaa lahayd inaad
nolol kale ama mustaqbalka dhan kale aad u weecatid maadaama aakhiradii qofka fankiisiina ay saameyn ku yeelan karto waa tahay waa anigoo walaashaa shukri ah kulaha ilaahay ku caafiyo insha allah ilaahay ku qalqayno isaga xirno insha allah waad liibaanaysaa xasidkana tusaalaha u noqoto in ay maxaa la yiraahdaa aad ogaatay aad ka kacday insha allah hore u soco khayr badan sharaf media 24 ayuu muuqaalkan idinka soo gaaraya I got a fish.